السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أصحاب تقييمها بدن يوتيوب جانل مع العيسوديسي. ما أنتنا ومقال كلو حيصله إن شاء الله تعالى مقال كان وهذا الهين تسيقول لي هاي مقال كان حكو سابسين هاي أريجا هذا الهين تبدن كده لي سوشيال ميديا أو يا ريحي بي طلعوا ميسوي ديسان أريجا يا ريحي بي وحو يهي معنا أهان iyo cidda soo hindistay kulay hadii aad taqaan waa taqaana laakiin hadaadan aqaanin ila baro maanta yaa riixay bi waa eray markiisa hore afqalaad ka yimid foreign language ayuu ka yimid then ka bacdi translation ayaa lagu sameeyay af Soomaali ayaa loo tarjumay Soomaalida inta badan waxa weeye waa dameer dhaan raacday oo kale Soomaalida inta badan marka aan waxa u jeedaa dad wanaagsan way jiraan fiican laakiin waxa badan inta xumaanta ka shaqeyso waad fahmi kartaa dadka inta badan waxyaabaha wanaagsan ma qaadaan oo ma booboniyaan waxyaabaha oo munkaraadka ah waxyaabaha xun ay hadba suugeeyaan ay hadba ii sheeg wareejiyaan social media dhex wareejiyaan ay xawaaji iyo cusba ku dardaraan ay buubuniyaan shayga wanaagsan oo khayrka ah inuu faafo ma rabaan ereyga marka yaa riixay bi wuxuu qabsaday dhammaan baraha bulshada oo dhan gaar ahaan TikTok-ga ani marka waa ku wareeray baxthi ayaan ku sameeyay research ayaan ku sameeyay waxa la igu yiri waxa laga soo turjumay af English oo asalkiisa ereygaas wuxuu ahaa yiri Bushan B ereygaasna waxa ku hadaaqay ama soo alifay fanaan oo reer fanaan Afrikaan oo lagarooniyaasha kamid ayaa ereygaas ku dhawaaqay ayaa la yiri Bushan B macnaheedu waxa waaye Bushan بمعنى bush laga keenay يعني الدفع والشده معناه ريحتان Bushan B marka magaciisa waay waa pronoun magacyal waay ninkaas fanaanka magaciisa la soo gaabi waay Bushan B ninka Bushan la yiraahdo yaa riixay Bushan B ninka Bushan la yiraahdo kuma riixay Soomaalida marka waxay u bedeleen marka yaa riixay B yaa riixay بمعنى يا معناه ninkaas yaa isticmaalay waa ninka B la yiraahdo yaa isticmaalay maadaama laga roono oo yahay khunfa oo yahay yaa u tagay oo wax ka dayay asiga sidii qoomluud oo kale ceebay tacaal amaqla jiri wallahi wax la yaabo waa Soomaalida wixii loo soo minguuriyo oo reer galbeedka loo keen le buuboniyaanba waxay nooga dhigaan wax qiimo badan nooga dhigayaan buubooninaya inta ku dhacaya maxay ka helay meel xun fadhi maxaa ka dhigay Soomaalida horta inta badan tuqsiga waxa la yiri korka meesha nabarka uu kaga yaalo ayuu ku degtaa la yiri hadii meeshaas nabar ku yaal hadii barfuun lagu buufiyo ama carfiso ama catar la mariyo waa ka cararaha la yiri waa ka hada tixsiga mar walbo meelaha oo urka ka jira ayuu diris leeyahay ayaa la yiri wakadalika dadka xumaan jecelka gaar ahaan kuwa loo yaqaan kumanti dhigliyaasha oo jecel waxyaabaha salbiyaadka ama waxyaabaha negative ka jecel alaaba waxay raadiyaan waxyaabaha xun oo cuyubta waxyaabaha ereyada xun oo aan wanaagsaneen oo diinteena islaamka iyo dhaqankeena suuban aan ku wanaagsaneen ayay raadiyaan hadaba walaalayaal ereygaas marka waxa weeye waa erey oo anshax darro oo waxa weeye oo mara la hubiyay waa erey xun oo loo labisay oo wax wanaagsan amal laga dhigaayo yaa riixay B maxay tahay yaa riixay B waxa ka sii liito ninkii oo ereygaas soo alifay waxa ka sii liito dadka buubooninaayo oo baahinaayo oo sheer gareynaayo oo waxa kale oo igu maqaala dhammaan commentiska oo dhan qof kasto social media isticmaala oo commenti qoraayo weekii la soo dhaafay last week waxay qoraayeen macnaha ereygan oo yaa riixay B inta ereygaas aad qori lahayd nabigeena suuba inaad ku saliso ilaan
nabiga sal allahu alayh wasalam xadiis muxuu ku leeyahay man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut. qofkii ilaahay rumaysan maalinta aakhirna rumaysan khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso. waa xadiis. insha allahu taala muuqaalkaygana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan qiimaha badan. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.